Vivo waa sharikad ka mid ah kuwa laga leeyahay dalka Shiinaha oo iminkana wax soo saarkeedu u soo wareejisay dalka Hindiya waxaana halkan u yimaadeen iyadoo Hindiya ay taariifad aad u sareysa saarto alaabta laga soo dejinayo dibadda qiimaha lagu sameeyo moobilada ee halkan ayaa ah mid aad u jaban dadaalka ay Hindiya ugu jirto inay wax soo saar farsamaysan soo saarto ayaa waxa u muuqdaa mid guuleystay in ka badan 240 warshadood ayaa laga furay daafaha dalkan Hindiya tan iyo 2014 samaynta moobiladu waxa ay gaadhay 300 oo milyan oo telefoon waxaana lagu qiimeeyaa 23 ilaa 24 bilyan oo dollar waxaanu sugaynaa waqtigii samaynta telefoonadu ay ku kici lahayd 60 bilyan oo dollar waxaan u malaynayaa waqtigan dadka siyaasadaha arrimaha ku lug leh inay aqoonsan doonaan hadda arrintu halkeedii inay ku noqon karto oo cashuur la saaraana aan macna lahayn Japan ayaa iyadu cabasho ka gudbisay Hindiya oo u gudbisay ururka ganacsiga adduunka ee WTO madaxweyne Donald Trump isagu waa cadaystay oo Hindiya siyaasadaheeda si cad ayuu uga soo horjeestay waxaanu bishan joojiyeen alaabta Hindiya ay Mareykan ku soo gasho iyadoo la siinayo mudnaan dheeraad ah waxaana uu sabab uga dhigay iyadoo aan Hindiya ogoleyn buuri in alaabada Mareykanku ay si furan u gasho. On the face of it, it does look like raising tariffs. waxay u egtahay inay wadamadu tacriifada ku ilaalinayaan dhaqaalahooda waxaana carqalad ku noqdeen wadahadalada ganacsiga haddii Mareykanka iyo Shiinuhu ganacsiga ku heshiiyaan tusaale ay caalamka u noqon then that's going to become the template for the rest of the world. xeeldheerayaasha ganacsiga ayaa aaminsan in Hindiya ay ka faa'iidi doonto dagaalka ganacsiga ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha laakiin dadka qaar ayaa la iyadoo Hindiya ay cashuuro badan iyo taariifado badan saarayso alaabada soo degaysa ayaanay noqonin baa la leeyahay in Hindiya ay ka faa'iideysato fursadda dahabiga ah ee imika bannaan